maalin wanaagsan saaxiibada ku xiran barteena YouTube ee channelka Galka Media iyo sidoo kale barteena Facebook ee Galka Media warbixinteena maanta waxaynu diiradda ku saari doonaa ciidamadii ugu badnaa oo xilligan la duldhigay xafiiska ra'iisul wasaare Roble farmaajo oo bilaabay qorsho ka dhan ah ra'iisul wasaare Roble maxaad kala socotaa qorshihii ugu dambeeyay oo xilligan ka soconaya Villa Soomaaliya yaad isleedahay labada hogaamiye way ku guuleysan doonaan arrimaha xilligan ee siyaasadeed ee soo kala dhexgalay kaalin inta in leey ayay mucaaradka ku leeyihiin khilaafkan xoogan soo kala dhexgalay madaxweyne farmaajo Fahad Yaasiin tallaabo ceenkee ah ayuu qaadi doonaa xogihii ugu dambeeyay waxa xilligan markaa Villa Soomaaliya ka soconaya ayaan diiradda ku saari doonaa balse daawadayaal marka hore subscribe inoo saara barteena YouTube ee Galka Media sidoo kale waxaad like iyo waliba follow aad inoo dhahdaan page-keena Facebook ee Galka Media warbixintan gaarka ah ee sida degdeg ah nagu soo gaartay ula sii wadaag saaxiibadaada kale waa tahay haddii aynu fiirino wax yar kadib waxaa markaa isbedelay jawiga siyaasadeed ee Soomaaliya taas oo markaa la rumaysan yahay in ay tahay kadib markii waraaqo isdiidan ay ka soo kala baxeen xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne farmaajo hase yeeshee warqadii ugu horeysay marka aynu dul istaagno ee ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa markaa shaqo joojin ku meel gaar ah iyo waliba taliyo ku meel gaar ah loo magacaabay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka haddaba tallaabadan oo uu markaa Roble qaaday maxay ka dambeysay xilli saacadihii la soo dhaafay inta badan kiiska Igraan Tahliil laga sugayay jawaab waafi ah inuu ka soo gudbiyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa xilligan waxa la soo warinayaa in tallaabadaasi uusan ku qancin ra'iisul wasaare Roble oo horey markaa u diiday in ay dagaalamayaasha al-shabaab ay markaa ka dambeeyeen kiiska dilka Igraan Tahliil balse xilligan waxa la soo warinayaa in madaxweyne farmaajo uu markaa garab istaag u muujiyay saaxiibkiisa khaaska ah ee siyaasadda 4 sano ee aynu ka tagtay aynu ka soo gudubnay ee ku hayay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir balse farmaajo 4 qodob markaa u muuqatay garab istaag ayaa xilligan markaa waxa la soo warinayaa in garab istaag uu u muujiyay 4taas qodob guud ahaanba marka aad fiiriso taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee xilligan xafiiska Roble uu shaqo joojinta ku meel gaarka ah ku sameeyay sidoo kalena xilka si ku meel gaar ah looga qaaday haddaba intaa kadib waxa markaa sii xoogeystay khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha mudaxleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble hase yeeshee Villa Soomaaliya ayaa durbaba waxa ay bilowday in ay markaa dhabar jibin siyaasadeed ku sameyso ra'iisul wasaare Roble taas oo la rumaysan yahay in qorshihii ugu dambeeyay ay tahay waxaana markaa xilligan Villa Soomaaliya ka soconaya kulan gaar ah oo u dhaxeeya saddexda nin ee lagu kala magacaabo Maxamed Farmaajo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir qorshaha xilligan la dejinayo ayaa waxa ay tahay sidii mar kale la isugu keen lahaa kulan baarlamaanka ayna markaa kalsoonida kala noqon lahaayeen ra'iisul wasaare Roble maxaad kala socotaa xilligan tallaabada u qorshaysan ra'iisul wasaare Roble ayaa la soo wariyay xilligan in markaa guud ahaanba uu garab istaagii ugu weynaa uu xilligan ka helayo dhinacyada shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale midowga musharaxiinta oo qoraalkiisa si aad ah markaa u taageeray tallaabada uu qaadayna ku tilmaamay ra'iisul wasaaraha mid guul iyo waliba taariikhi ah waxaase sidoo kale xilligan soconaya durbaba qorshayaashii ugu dambeeyay ee ra'iisul wasaaraha loo maleegayo taas oo dad badan ay xilligan ku macneeyeen in ay markaa la macno tahay sidii loo soo afjari lahaa awoodda ra'iisul wasaare Roble haddaba Roble miyuu markaa ka baaqsan doonaa dhaleecaynta iyo waliba dhabar jibinta siyaasadeed oo ugu imaanayso dhinaca markaa madaxweyne farmaajo sida aan xoguhu markaa ku helayno ra'iisul wasaare Roble ayaa xilligan isana dhankiisa waxa uu wada dadaalkii ugu badnaa ee uu markaa ku dhaqan gelinayo amarkiisa oo uu markaa xilligan dafiray madaxweyne farmaajo marka aynu dul istaag ku sameeyno awoodaha sharciga ah iyo waxyaabaha markaa la isku haysto guud ahaan ayaa sidoo kale warqadda ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa ka soo baxday horay ayaaba Fahad xilkan looga qaaday oo waxa ku taariikhaysan 3 bishan aynu ku guda jirno iyadoona qorshahaasi uu ahaa qorsho horay markaa loo dejiyay
muujiyey oo uu ra'iisul wasaaruhu markaa go'aan aad u wanaagsan ka qaatay sida ay xoguhu tilmaamayaan. xaalkan halkee ayuu markaa ku fursan doonaa? daawadayaal, sida aan la soconnaba ma uusan soo bilaaban haatan khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble, balse waxa uu ka soo bilowday sida ay dad badan aaminsan yihiin safarkii ra'iisul wasaaraha bishii aynu ka soo gudubnay uu ku tegay Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, iyo weliba heshiisyada oo markaa madaxweyne Farmaajo waraaq ka soo saaray ee dowladda hay-adaheedu in aysan geli karin, taas oo la rumaysan yahay in ra'iisul wasaaruhu isna uu ka biyadiiday. sidoo kale Roble ayaad markaad fiiriso waxaa markaa xusid mudan in Fahad iyo weliba arrimaha uu xilligan xilka qaadista kumeelgaarka uu sameeyey iyadana markaa loo fasiran karaa in ay tahay qorsho uu markaa ra'iisul wasaaruhu ku doonayo sidii uu markaa uga hortegi lahaa dhinacyada markaasi ee tallaabooyinka siyaasadda oo markaa Fahad sheegay inuu ku milmay arrimaha doorashooyinka, taas oo ciidanka la doonayo in ay ka madax bannaanaadaan. hase yeeshee waxaa markaa guud ahaanba xaalka siyaasadda Soomaaliya u noqday mid markaasi isbedela, taas oo ay dad badan markaa aaminsan yihiin in aysan markaa waxba soo kordhinayn xaaladan ra'iisul wasaaruhu ku soo korodhay. saameyn intee in leeg ayay markaa ku yeelan kartaa arrimaha doorashooyinka? marka aynu dul istaagno xaaladda siyaasadeed ee waddanka iyo jawiga sida uu isku bedelay, waxaa la aaminsan yahay in ay tahay mid markaa tani ay saameyntii ugu weyneed ku yeelan karta arrimaha doorashooyinka, taas oo ay dad badan saacadihii aynu ka soo gudubnay ay ka digayeen. haddaba ra'iisul wasaare Roble dadaaladiisa arrimaha doorashooyinka miyay ka mashquulin karaan dagaalkan iyo weliba awood sheegashada xilligan uga imaanaysa dhinaca Villa Soomaaliya? sida dad badan ay rumaysan yihiin, ra'iisul wasaaraha ayaa waayihii dambe si aad ah markaa ugu mashquulay kiiska Ikraan Tahliil, taas oo la rumaysan yahay in ay tahay qorshihii ugu dambeeyey ee uu markaa ku doonayo inuu ku soo afjaro awoodda xilligan uu isbiday dhinaca markaa madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shacab badan ayaa saacadihii aynu ka soo gudubnay ilaa iyo weliba tan iyo xalay waqtiga dambe waxa ay markaa si adaga uga hadlayeen kiiskan ee ra'iisul wasaaruhu iyo tallaabooyinka uu qaadi doono. waxa ayna markaa u kala safteen dhinacyada Farmaajo iyo Roble sida ay dad badan markaa aaminsan yihiin. waxaa soconaya xilligan qorshihii ugu dambeeyey, sidoo kale ciidamadii ugu badnaa ayaa xilligan la duldhigay xafiiska ra'iisul wasaaraha, taas oo ay dad badan oo markaa ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaruhu ay ku micneeyeen in xilligan qorshihii ugu dambeeyey Villa Soomaaliya ay ku doonayso in si awooda ay markaa xilligan ku maquuniso talada iyo weliba go'aanada uu qaadanayo ra'iisul wasaaraha. sida la wada ogsoon yahay, xogahan waxa ay markaasi yihiin mid markaa saacadihii aynu ka soo gudubnay dhinacyo badan ay markaa ku tilmaamayeen in ay tahay qorsho mijin xaabin ah oo loo degay dhinaca ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, taas oo ay dad badan markaa ka digayeen. haddaba maxaa dhici kara saacadaha soo socda? sida dad badan ay aaminsan yihiin, waxaa markaa la rumaysan yahay in ciidamadii ugu badnaa oo ka kala tirsan dhinaca Haramcad iyo Gorgor xilligan ay markaa garab istaag u muujiyeen Fahad Yaasiin iyo weliba Farmaajo, go'aanadoodana ay doonayaan in ay si xoog ah markaa u dhaqangeliyaan sida qof ka tirsan shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu goordhow xaqiijiyey. hase yeeshee qorshahan waxa uu markaa sidoo kale yahay mid markaa dhinacyadu ay xilligan ku soo afjarayaan midba midka kale waxyaabaha xilligan uu ku doonayo awooddiisa siyaasadeed in uu ku socodsiiyo. haddaba maxaase xilligan ee arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedyada maxaa laga filan karaa? dowlad goboleedyada sida la aaminsan yahay intooda badani waxa ay markaa garab taagan yihiin madaxweyne Farmaajo, taas oo la aaminsan yahay in ay tahay qorsho oo markaa xilligan Farmaajo u dejinayo dowlad goboleedyada, ayna taageeri doonaan baaqa ka soo baxay dhinaca markaa xafiiska madaxweyne Farmaajo.
farmaajo sidoo kale maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa iyaguna markaa laga yaabaa inay garab istaag u muujiyaan ra'iisul wasaare Roble sida iyaguna markaa ilo kala duwan xafiisyada madaxda Jubbaland iyo Puntland ay noo xaqiijiyeen maxaase xilligan durbaba markaa ka soo dhaqangeli kara arrimahaasi Bashir Goobe oo sida la aaminsan yahay ay dad badan ay qabaan inuu xilkan markaa qaban karo ayaa isaguna markaa xilkan si ku meel gaar ah loogu magacaabay miyuu la wareegi doonaa xilkaasi 3 beri oo markaa ra'iisul wasaaruhu amray inuu xilka ku wareejiyo Fahad miyay wax ka soo naasacadaan karaan fikirkaaga qaybaha hoose ee commentiga inagula wadaag warbixintana u sii share garee saaxiibadaada kale sidoo kale like iyo follow ba inoo dheh page-keena Facebook ee Galka Media barteena YouTube ee Galka Media-na subscribe inoo saar daawadayaal wararkana u sii share gareeya saaxiibadiina kale wixii wara oo ku soo kordha arrimahana waxaad kala socon doontaan halkan isha toos ugu haya mahadsanidin